bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal meel walba iyo waqti walba oo idiin tahay waad ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijkan gaarka ah oo aan maanta ugu talagalnay in aan ku falanqayno oo aan ku dul istaagno xiisadda marba marka ka dambeysa sii kululaanaysa ee ka dhex eloosan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka galmudug. haddaba maxaa la isku haystaa? waxaa la isku haystaa dowladda federaalk soomaaliya oo doonaysa inay doorasho ka qabato maamulka galmudug caasimadiisa ee dhuusamareeb. haddaba qoorqoor ma ogol yahay doorashadaas? waa maya. dowladdu waxay go-aan ku gaartay sidii ay uga takhallusi lahayd meeshana ay uga saari lahayd madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor. waxayna dabacsan tahay sida la sheegay dowladda inay ku bedesho kursiga axmed cabdikaariye qoorqoor uu hadda ku fadhiyo ninka lagu magacaabo ganacsade liibaan shuluq oo ah mid ka mid ah ragga dhiilasha ganacsi kula jira dowladda federaalk soomaaliya. haddaba maxaa ka jira in ay soo noolaatay rajadii mahad maxamed salaad taliyaha nabad sugidda ee uu asagana ku doonayay kursigaas inuu hanto inay soo laabatay oo soo noolaatay? waxaa lasoo warinayaa in habeenkii xalay ahaa kulan waqti dheer qaatay oo u dhexeeyay madaxweynaha federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo taliyaha nabad sugidda mahad maxamed salaad uu ku soo idlaaday fashil kadib markii mahad maxamed salaad uu ku adkaystay in uu kursiga madaxtinimada maamulka galmudug uusan ka haraynin oo uu asaga u taagan yahay. sida la warinayo wuxuu taageero ka helayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya axmed cabdikaariye qoorqoor oo isagu aada isaga ilaalinaya musharaxa ay dowladdu wadato liibaan shuluq. haddaba xaggee buu kusoo idlaan doonaa buuqan iyo dagaalkan iyo qalalaasahan hareeyey maamulka galmudug? dowladdu waxa ay doonaysaa in ay awood ciidan oo militari u isticmaasho soo qabashada caasimadda iyo madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor in ay u dirto ciidan, halka saraakiil ku hayb ah madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor sida taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka banaadir saadiq john ay hanjabaad hawada usoo marinayaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliya gubi ahaanba. haddaba qoorqoor ma sii haysan karaa dhuusamareeb iyo xilka madaxtinimada? jawaabtu waxa ay tahay haddii uu taageero ka helo mahad maxamed salaad iyo beesha degta deegaanada dhuusamareeb ee caasimadda ah waa uu sii joogi karaa. haddiise uu garabkiisa ka baxaan beesha cayr oo degta dhuusamareeb ilaa gurceel, waxaa ku adkaan doonta madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor inuu sii haysto caasimadda iyo madaxtinimada. haddaba dowladdu ma ku adkaan doontaa dagaalkaasi? waa suurtagal haddii ay isticmaasho kaarto la mid ah sidii kaartadii lagu soo qabtay ama xilka looga dejiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ay adeegsato ciidanka turkiga ee gorgor uu tababaro iyo dabaabaadka ay turkigu dhowaan ku qalabeeyeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya.